Bismillah, ciyaaraha Britoola ka dhici doona Premier League waa ciyaar wareegii 20aad weey, waxaana iska hor iman doona naadiga Arsenal oo la ciyaari doona Liverpool. Waxayna dhici doontaa 6:15 galabnimo ee Geeska Afrika, halka Leicester City la ciyaari doonta Cardiff City. Crystal Palace waxay soo waajihi doontaa Chelsea, Burnley waxay la ciyaari doontaa West Ham, Manchester United waa maalinta Axad waxay waajihi doontaa naadiga Bournemouth, halka Fulham City la ciyaari doonta naadiga Huddersfield. Brighton oo wareegii ka horeeyay barbaro la gashay Arsenal waxay waajihi doontaa Everton oo 2 ciyaarood ka hor Liverpool Tottenham kaga badisay 6-2, halka Watford ay la ciyaari doonto Newcastle. Tottenham waxay la waajihi doontaa Wolverhampton. Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta la sugayo waxay dhexmari doontaa waa naadiga Liverpool iyo Arsenal. Liverpool oo iminka kaalinta koowaad ku jirto 51 dhibcood leh, halka naadiga ku xiga waa Tottenham ay leedahay 45 dhibcood. Man City oo 2 ciyaarood laga badiyay hadda waxay leedahay 45 dhibcood. Arsenal ma ka badi doontaa? Su-aasha la isweydiiyay waxa weeye Arsenal ma ka badi doontaa Liverpool oo Premier League ma ka dhigi kartaa mid dardarkiisa iyo shahaadadii shalay, mise Arsenal waxay raaci doontaa tubtii naadiyadii hore Liverpool ay ka badisay, waayo Liverpool xataa aan lagama badin. Saadaashan sugi doona waxa weeye waa kulanka Arsenal iyo Liverpool. Haddii Liverpool badiso ciyaarta ku xigta waxay la ciyaari doontaa Man City. Haddii Man City ka badiso Liverpool waxaa loo saadaaliyay inay noqotay hoggaanka Premier League ee 2019.